kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ciyaaraha ugu waaweyn iyo weliba wararkii dhinaca wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga waxyaabihii laga yiri oo qodobo xiise leh oo dabcan ay ka mid yihiin kooxda Chelsea oo u dhaqaaqday ciyaaryahanka Anthony Semenyo iyo Liverpool oo raadinaysa David Hanko oo ka tirsan kooxda Feyenoord. Sidoo kale waxaan idin hayaa Barcelona mustaqbalka ciyaaryahanka Frankie de Jong go-aan ayay ka qaadatay iyo weliba wararka la xiriira ciyaarihii xalay laga ciyaaray koobka horyaalka Spain iyo koobka kale ee FA Cup-ka Ingiriiska. Horyaalka Spain kulankii maqaawiirta ah waa la isku garab dhacay oo magaalada Madrid labada kooxood ee ka wada dhisan ee xoog weynta ah halkaas wax waa ku kala qaadi waayeen. Waxaa dabcan kale oo ku jira Chelsea oo laga cirib tiray tartanka FA Cup markii ay khasaare kala kulantay kooxda Brighton iyo waxyaabihii laga yiri iyana ciyaartaas oo aan dabcan idinkugu hayno soo jeedinteennan. Waxaan daawadayaal idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka noogu dhufataan qaybta YouTube, sidoo kalena aad sheerta iyo like-taba inoogu garaacdaan isla YouTube. waad ku mahadsantihiin la socodkeen. Dabcan waxaanu ku bilaabeynaa wararka la xiriira dhinaca wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen suuqa kala iibsiga. Kooxda lagu magacaabo Chelsea waxa ay isu diyaarinaysaa sidii ay 50 milyan oo lacagta yuuraha ah una dhiganta 41 milyan iyo bar lacagta ganiga sterlinka ugu soo qaadan lahayd 25 sano jirka kooxda Bournemouth garabka uga ciyaara gaanana kasoo jeeda Anthony Semenyo sida uu warinayo wargeyska Fiches ee wadanka Spain laga leeyahay. Kooxda Liverpool ayaa la rumaysan yahay inay usii dhowaanayso la saxiixashada Feyenoord ciyaaryahankeeda sidoo kalena Slovakia u dhashay ee difaaca ka ciyaara David Hanko oo 27 jir ah kaasoo bartilmaameedyada rasmiga ah ee kooxdan ka mid ah Caf Offside ayaa wariyay. Netherland xidigeeda khadka dhexe ee 27 jirka Frankie de Jong ayaa kooxda Barcelona waxaa loo sheegay in ay xilli ciyaareedkan iska iibiso. Waa suuragal baa laleeyahay isna inuu u dhaqaaqo kooxda Liverpool mar haddii tababaro Hollandaise halkaas uga sii horeeya El Nacional oo Spain ayaa sidaas isna warinaya. England weeraryahankeeda Harry Kane oo 31 jir ah waxa uu dabcan doonayaa in uu sare usii qaado hanaankiisa ciyaareed inkastoo kooxda Bayern Munich xidigeedan suuragal laga dhigayo in xilli ciyaareedka soo socda uu ku biiro kooxda Arsenal maadaama kooxdani ay raadinayso qandaraaskiisa kooxda Bayern Munich-na uu dhammaad xilliga noqonayo. Wargeyska Mirror ee Ingiriiska kasoo baxa ayaa isna sidaas wariyay. Spain weeraryahankeeda Ansu Fati oo 22 sano jir ah ma tixgeli doono dalabaadka uga imanaya kooxaha Turkiga waxaana suuragal laga dhigayaa in uu dabcan sii joogi karo kooxda Barcelona oo diiradda saari doono. Kooxda Real Madrid ayaa laba ciyaartooy oo difaaca dhexe ka ciyaara bartilmaameed ka dhigan doonta suuqa soo socda waxaase ugu horeeya Faransiiska iyo Arsenal xidiga difaaca uga ciyaara ee William Saliba oo 23 sano jir ah kaasoo kooxda Real ay u aragto inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah. Relefo ayaa sidaas wariyay. Chelsea waxay ka mid tahay 5 kooxood oo daneynaya 26 sano jirka goosha u ilaaliya kooxda Liverpool iyo xulka Republic of Ireland Quahim Kalaha kaas oo isaga dhaqaaqi kara kooxda Reds marka la gaaro suuqa bartamaha ee bisha June. TBR Football ayaa sidaasna wariyay. Arsenal, Manchester United iyo Liverpool waxa ay xiiseynayaan ciyaaryahanka 20 jirka ah ee Eintracht Frankfurt khadka dhexe uga ciyaara Sweden kasoo jeeda Hugo Larsson sida Caf Offside wariyay. Kooxda Chelsea waxaa la rumaysan yahay in ay u diyaar garoobayso sidii ay usoo qaadan lahayd difaaca kooxda Sporting Lisbon ninka la yiraahdo Ousmane Diamonte kaas oo kooxda Manchester United sidoo kale aad loola xiriirinayay. 22 jirka wadanka Ivory Coast kasoo jeeda ayaana in uu ka tagi karo kooxdiisa xilli ciyaareedkan dabayaaqadiisa waxa ay tahay midda ugu weyn ee aadka loo hadalhayo. Team Talk ayaa sidaasna wariyay. Kuwaasi waxa ay ahaayeen wararka ugu waaweyn dhinaca wargeysyada waqtigan balse intaanan soo gabagabeyn qaybtanan ciyaaraha kooxda Real Madrid xidigeeda Kylian Mbappe ayaa bandhigiisii fiicnaa ku jira waxaana uu gool ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid ciyaartii gool iyo gool labada kooxood ay ku dhameysteen qaybtii hore si xoog leh oo bandhigeeda difaacu sareeyo ayay kooxda Atletico Madrid soo muujisay wax fursadana laguma aadin goosha goolhaya Oblak uu ilaalada ka hayay balse qaybtii dambe
argagax xoog leh ayaa la geliyey Atletico Madrid oo weli hanaankeedii difaaca inay kusii jirto go'aan kusoo qaadatay, balse weerar xoog leh oo lagu qaaday tiirarka iyo goolhayaha ayaa aad u difaacay kulankan, waxaana kooxda Real Madrid ay ciyaartaas soo barbaraysay goolka daqiiqadii 50aad. qaybtii horena markii hore iyada ayaa gool iyo eberkaas oo rigoore ahaa lagu marsiiyey, balse hadda kooxda booska labaad ee Atletico Madrid waxaa usoo dhowaan karta kooxda Barcelona mar haddii ay soo badiso ciyaarta ay la leedahay kooxda Ishbiiliya oo maanta dhici doonta. Barcelona ayaa hal dhibac u jirsan doonta kooxda booska labaad ee Atletico Madrid oo dabcan iyaduna aan jeclaysan in ay dhibca ku lumiso ciyaartii ay la qaadatay kooxda Real. dhinaca kalena kooxda Ingiriiska ee Chelsea ayaa laga cirib tiray tartanka FA Cup-ka dalka Ingiriiska kadib markii ay 2 gool iyo gool guuldarro ah kala kulantay kooxda lagu magacaabo Brighton Hove Albion. Brighton oo marti loo ahaa ayaa adkaatay ciyaartan, waxaana ay ku badisay 2 gool iyo gool. 3 goolbana ciyaartoyda Brighton ayaa dhaliyay. waxaa kama gool ahaa gool uu iska dhaliyay goolhaye Verbruggen oo waddanka Netherland kasoo jeeda oo Chelsea goolka koowaad iyaduu u sahlay daqiiqadii 5aad. 12 daqiiqo markii ay maraysay 7 daqiiqo kadib goolka hore waxaa soo barbareeyay ciyaaryahanka Ruta la yiraahdo, halka Karu Mitoma oo daqiiqadii 57aad uu saariyay oo ka dhaliyay goolka guusha ee kooxda Chelsea looga adkaaday. ciyaaro kale oo ka tirsan isla tartanka FA Cup-ka dalka Ingiriiska ayaa maanta jiraya iyana, waxaana ciyaarahaas maanta dhacaya ka mid ah kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex maraya kooxaha Plymouth iyo Liverpool. Plymouth ayaa marti qaadi doonta kooxda Liverpool ee horyaalka Ingiriiska hogaaminaysa, halka Wolves iyo kooxda Blackburn ay iyana ballansan yihiin. Aston Villa iyo Tottenham kulanka ugu adag ayay wada qaadan doonaan tartanka FA Cup-ka Ingiriiska. welibana halkaas waxaa lagu xiray mustaqbalka tababare Ange Postecoglou oo dabcan fursadda sii joogistiisa kooxda Tottenham ay ciyaartani ka mid tahay ciyaaraha go'aamin kara. isagaas ayaa ugu dambeeyey dabcan wararkii wargeysyada iyo weliba kulamadii FA Cup-ka laga ciyaaray iyo kuwa la ciyaari doono, iyo sidoo kale horyaalka Spain oo derbigii Madrid labada kooxood ay isku garab dhaceen oo aan idiin soo qadimayaan oo ah Muuse Xushow. daawadayaal subscribe-ta noogu dhufta YouTube-ka waanaad ku mahadsantihiin la socodkan.